بسم الله الرحمن الرحيم waxay ahayd dhowr bilood ka hor markii aan ku dhawaaqay inaan musharax u ahay golaha deegaanka caasimadda Hargeysa xilligan maan ahayn mid ka tirsan saddexda xisbi qaran ee dalka ka jira sharciyana ma jirto musharax madax bannaan oo tartami kara isaga oo aan ku sharaxnayn saddexda xisbi qaran ee sharcigu ogol yahay sidaa daraadeed waxaan ku khasbanaa inaan la kulmo xudxuto saddexda xisbi qaran ee jira saddexda xisbiba way ku mahadsan yihiin kulamadii aan la qaatay saddexda xisbiba waan u mahadnaqayaa saddexda xisbiba waxaan ugu mahadnaqayaa inay ii siiyeen fursad inaan wada hadallo kulanno damacayga u sheego markaan ka imaado mahadnaqa aan u diraya saddexda xisbi qaran ugu dambeyn waxay noqotay inaan go-aan gaadho oo aan ku dhawaaqo xisbiga aan ku tartami doono magaciisa ugu tartami doono magaciisa golaha deegaanka caasimadda Hargeysa anigoo ka xun haddii ay dhacdo in go-aankaygani uu iga reebo cidi taageersanayd haddana waxaa lama huraan noqotay inaan ku dhawaaqo saddexda xisbi ee jira xisbigii aan iska sharaxi lahaa hubaal waxaa ah oo ka turjumaysa qofka aan ahay inaan noqon doono qof wada matala dhammaan shacbiga Hargeysa u hadli doona u doodi doona shacbiga Hargeysa isaga oo aan u kala abtirinayn qofkaasaan u ahaa dadkayga reer Hargeysa qofkaasaan u ahaan doonaa shacabka reer Hargeysa waxaanan ahay mid ogsoon in ay tahay inaan matalo shacabka halkii aan soo horreysiin lahaa inaan matalo xisbiga aan ku sharaxanahay waxaan ogahay xisbigu qofka ma bedelo ee qofka ayay tahay inuu xisbiga bedelo marka xisbi kasta oo aan iska sharaxo waxaa hubaala inaan horreysiin doono inaan shacbigayga Hargeysa wada matali doono aniga oo aan u kala abtirinayn reer Hargeysow maayirku ha inoo dambeeyo laakiin xilka maanta idin saaran waxa weeye inaad doorataan xildhibaano wanaagsan waayo shacabku toos uma soo doortaan maayirkooda 17 xildhibaan ee dooran doonto ee aad u dooran doonto golaha deegaanka ayaa iska dhex dooran doona maayirkii caasimadan maamuli lahaa ee ka dhigi lahaa caasimadda ay u qalanto sababtaa daraadeed haddaad shacabka tahay xil baa ku saaran codkaaga xildhibaanka aad u soo dhiibaysaa inuu noqdo xildhibaan adiga ku matala oo kuu doori kara maayirka aad jeceshahay inuu Hargeysa ama qofka aad jeceshahay inuu Hargeysa maayir ka noqdo shacabka waxaan ka codsanayaa inay aad uga fiirsadaan aad isaga hubsadaan qofka ay u soo dooranayaan magaalada Hargeysa inuu u noqdo ama ka mid noqdo golaha deegaanka mustaqbalka Hargeysa wuxuu ku xidhan yahay xildhibaanka aad soo doorato sidaa darteed haddaad Hargeysa jeceshahay aad iyo aad iyo aad uga fiirso qofka aad dooranayso aniga haddaad i doorato sidaan horeba u ballan qaaday waxaan ahaanayaa xildhibaanka shacabka xildhibaanka matali doona Hargeysa oo dhan xildhibaan aan la aamusiin doonin oo u hadli doona shacabka Hargeysa oo dhan baahidooda ka hadli doona iyaga matali doona qorshayaasha fiican ee loo dejinayo magaalada Hargeysa in lagu horumariyana qayb ka qaadan doona
haddii alla maayar ka dhigana hore waan aniga uga hadlay halka ugu dambaysa waxaan shacbiga Hargeysa u sheegayaa markii aan wax badan rogrogay arrimo badan eegay inaan haddii ilaahay yidhaahdo ku tartami doono oo aan ka mid noqon doono musharaxiinta u tartamaysa golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ee ku tartamaysa xisbiga wadani marka sidaas ayaan shacabkayga kula socodsiinayaa go'aankii ay inta badan iga sugayeen ilaahay waxaan ka baryayaa go'aankan inuu yahay go'aan khayr qaba waxaan ilaahay ka baryayaa go'aankan inuu ii soo jiido cod fara badan waxaan ilaahay ka baryayaa go'aankayga inaanu qof jeclaa oo ila socday aanu iga reebin sidaas bay shacabka reer Hargeysa igu ogaan doonaan waxaanan ka rajaynayaa inay halkaa aan go'aanka kama dambaysta ku gaadhay inaan ka soo tartamo inay ii raacaan oo ay codka igu siiyaan insha Allahu tacaala waynu guuleysanaynaa insha Allahu tacaala Hargeysa waynu dhisan doonaa insha Allahu tacaala Hargeysa waxaynu ka dhigi doonaa caasimadda ama magaalada ay u qalanto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu